adeer waxaa kuu sheegi raw mataqaanaa adeer daar mi maqluusaa oo ku maqlaa waxaa isoo gaarta mataqaanaa videoga in $800 lagu kala gatay ma fahantay haye gabar ee iga duubtay oo weliba nin Kenya jooga ka gatay okay video $800 lagu kala gatay kow $800 lagu kala gatay videoga gabar videoga bixisay nin Kenya joogeen oo dirtay nin Kenya joogay $800 ka sitay oo dirtaa arintaas aa soo ogaadeen fahantay marka gabadha adigu mustaqaanin aniga hal qof ka shakisanahay laakiin ana qofkii xaqiijin ma shaacin karo mana sheegi kari waaya ninka ma aqoon ninka ma aqoonin marka maxay kula tahay muxuu ka dheefay waxa $800 maxaa looga bixin ay kula tahay dhowr mar hadda ka hor dhowr nin ii hanjabeen laakiin abadan ba ma igu soo dhicin inuu video wax laga keeni karo haye waa kaasa marka soo ogaad qabta insha Allah kula soo wadaagi doona tan badan ugu jira saga habeen dhan baa lagu samaynayaa oo lagu samaynayaa ilaahay kuma sameeyay barnaamij baashaala oo giftirka dadkaaga iyo kullu wada barminaya tiika ma faanta habeen qurux badan ayaa ku diyaarinaynaa oo habeenka xayaad la yiraahdo oo fanaaniinta dhan aan wada balliminayno oo adiga ku gaara hadda ma taqaanaa waxaan raba kaliya uun inaan ku yeero inaan ku sheegno ka dhaadhicina inay ceeb inaan ka dhaadhicina adiga qalad leheen ka dhaadhicina ma fahamtay ya thank you so much in lagu waabinayaan ka dhaadhicina sheekadan TikTok leetahay aan ka dhaadhicina wax qalada oo ani meesha iga muuqdo ma jirto ma fahamtay marka arrintaas ka dhaadhicinay who cares ma fahamtay hadda ka hor waxa jirta islaamba ilmaheedu marka TV-ga soo galaan wax isnuuqay ay tag ay ka daminay laba qof isnuuqay arkaysa way ka daminay maalinta ba tareenka la wada raac mugta nin inaag oo life asnuuqooyaba waxay dhaheen hooyo bedre dhaheen Netherland ka dhacday Netherland ka dhacday hooyo naga bedre dhaheen ha maamadii waxay dhaheen hooyo there is no remote ma haystid miyaa ku dhaheen waay ha marka waxa wax laga bedeli karo ma jirto ninkii naagta ina waaba saxba ninkii naagta qaba waa ilaah isu baneeyay waxa la yiri gabdhuhu ama naagtaada waa beertaada ku raaxayso ya gabadhuna ogaada gabdhuhu wax ka qalbi fiican ma laha haddii jacayl daacad ay helaan gabdhuhu si daacad ay u dhaqmayaan haddii laakiin gabdhaha la dulmiyo wax ka dagaal kulana ma leh iska celinayaan waa saxanta ha wax ka dagaal kulana ma laha gabdhahana waxaan rabnaa bisha ramadaanka la soo gaaray hal wada cafiyad ka safiyaano dhibkii buuqa hala yareeyo bisha ramadaanka aan si fiican u cibaadaysano gabdhaha iskaabulada dhanna waxaan rabaa aniga ku tolkayga inay wada guursadaan ani guur marow bis waaye maxaa ku adima guurka wax ka heliyaa hadda ii sheeg ay guur wax miiga hala laakiin wax jirmaano ay xamdi ay adiga ay oxida xamdi ina baxaara waa hal mar waxaan rabaa xayaad inaa u heeso intaan wax yar hay u hees uqaado waxaan xayaad quruxay gaaridu hebadii qurux bay xayaad idmayneed gris baad u tahay ma fahamtay xayaad quruxay heeskaas inaan ku dhamaystiraa mid meesha baa iga soo dhex gashay waa salaamaya sida hay ku celi xayaaday soo ku celi uqaado waxaan xayaad quruxay gaaridu hebadii qurux baad u tahay xayaad waa hubal hablowaad ka mudan tahay utuma heelada ilwada dhaantada utuma heelada ilwada dhaantada utuma oo salaamaya dhamaantiin ma sha Allah qurux xabiibti sharafaa leedahay ma fahamtay horu sacaa ku leeyahay nin inaagis qabana dee waxaas iyo reer TikTok waxaa aaminsanahay aniga caadi ah hortan waxaas loogu sameeyaa والله بنت معها بس عادي يا ولد horteena lagu sameeyaa horteena lagu sameeyaa marka xabiibti hore u soco au joojina ku leeyahay
thank you so much soma ايه انا واتقان هستي دي واتقانا او gaadha warka beesho ولي حق ريبنا صح سيدا samaha weligaa ka reebin heeskii bismillaah inta ka bilaabinaysa horta نانا تازا نقول لا يا هاي سيدا aniga ma ku siinasiya inta soo xasuusinayso inkastoo ka dhiidhiibta aanu kula qabin sanadhawacaagan dhaymadiisa u noolahay dhagar qaba waayuhu gaalgacayl ma dhowrte cid kastoo igu dharbaan daradaa u dhafa lugtuwa dhaqaajaha noolaha dhaweeye haddaad dhabaarka beeshaan dhakhtarkaaga noqon laa sooma صبر adeer waa idinka sii tegayaa وانا صحني waxaan ku leeyahay faca ka horeeya xabiib هاي nin horta waddanka horumaraa ka socda sidii hore maaha hadda filinjeero meydka lagu keediyo oo aysan isbedeleen oo caalami ah oo kuwa adduunka lamid ah haysanaa ma fahamtay laakiin faamilka gabadha ay ka dhalatay waa iska cadiifadaysan yihiinoo waa xanaaqsan yihiin ma garatay markii waxa waaye adi hadda maalan kaba soo qaad gabadhaadii ama wiilkaagii oo la gubay see dareemay waa wareer ilaahay naguma keeneen haa marka gabadhaas sababta filinjeerka loogu hayo waxaa waaye inay cadaalad hesho ma garatay waa intaas un ma fahamtay ha inay cadaalad hesho waaye marka saas darteeday u dhaheen faamilka gabadha ee ka dhalatay annaga ma duugeyno ilaa lala aaso ninkii gubay marka waxay macalinka tiisa waxaa dilay arday 6 jir ah oo iskuulka la keenay oo agoonnimo loo qoray hay-ad lacag looga qaadi jiray ilaa uu ka weynaado iskuulkaasuu dhigan jiray isla iskuulkii uu kusoo laabtay macalinkii ayuu dilay waa uu baxsaday ilaa iyo hadda jaan iyo cirab meel oo dhiga lama haayo maxaa waaye horumarka socdo aa sheegaysid aaway horumarka ma wuxuu yahay dadka la dilo midaa jirtee feere hadda kaba soo qaad ninkan intee laga soo qabto mataqaanaa galgaduuda laga soo qabto canugan macalinka dilay waa lagu raad joogaasne waa dhuudhuuma karaa laakiin niyahu qofkii qof dilaa horta ma ladaayo ma fahamtaade ma faraxsanaanayaba sida saxdaas uma ogid xataa haddii la daayo oo la yiraahdo okay ma lagu rabo iska bax ama qurbahu aadaba kaba soo qaad maalan ma seexanayo habeenkii ma fahamtay habeenkiina ma seexanayo dadka markuu ku dhex jirana cabsi rabaanayaaba iska haysataba adduunku ku imtixaamaya soo mogid qofka dilaaga ah ee qof dilaa ma garatay laakiin Soomaaliya waa aragtay magaalada Muqdisho dilal badan ka dhaca marka dadkaasoo dhan macnaha lama soo wada qaban karo ma fahamtay Soomaaliyana waa ogtahay inuu dadka hubkii iska haystaan ma garatay laakiin waa la dadaalayaa ma fahamtay intii ay awoodaan midda meesha iga muuqata waxay ila noqoto mataqaanaa ciyaaryahanada waa aragtay markii ciyaaryahan foul oo galo rabo jaale in la siiyo afar kala buuq kicinayso si ciyaaryahankaas jaalaha looga mashquuliyo mintiya wadnaha ka gelisay sababtoo waxaa la ogaaday maxkamadii la tagay in la jijiitamayo oo waqtiga uu sii dheeraana qofka fursad uu ku sii noolaado in uu helayo laakiin haddii la sameeyo shakhsiga markuu qaladka galaba la qabtaba meesha lagu toosiyo way yaraanaysaa sababta aan waa cabsanaa anidii walaalkayga la dilo aan wax ma samayn karin waxaan leeyahay birtana kuga imaanayso laakiin haddii ay tahay waxaan wala iska daba jiitama qabiil fiican ka dhalatay haddii la dilo xataa feere walaalka haddii la dilo kula dhashay adi iskama dili kartid mogtaa ninka walaalkaa dilo ma fahamtay sababtoo ah aabbaha hadduu joogo asagaa go-aanka iskale ma fahamtay arrintan filinjeerka
oo meed inta la geliyo la dhaho ilaa cadaalad looga helo lagama bixinayo filinjeerka oo mararka qaarna dhacdo filinjeerka in looga daba tago la dhaho in halaga saaro filinjeerka oo habeen walba qarash lagu bixinayo anaga waxas ma qabi jirin xagee nooga imaadeen marka